بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب. سنحطم اليأس المدمر بالرجاء، ونمد جسر الحب بالأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كسود هذا برنامج كيني هو قد سالين تدليرده حلقة مانتا وحين كجهل لدونا مشكلة ذها شباب كهيستا iyo xalkooga. xalqadii hore waxaynu kaga soo hadalnay shabaabka iyo martabada ay diinta islaamka ka taagan yihiin. insha Allah ta'ala xalqadeenan maantana waxaynu ku qaadanaynaa mushkiladaha iyo dhibaatooyinka soo wajaha iyo xalalkooga. shabaabka waynu ka soo sheekaynay, shabaabka waynu ogaanay qiimaha ummadda islaamka ugu taagan yahay, waynu garanaynaa mansilada iyo martabada ay diinta islaamka ka taagan yihiin. haddii aan doonayno inaynu dhisanno mustaqbal wanaagsan oo ifaya, waxa weeye waa inaynu dhalinyarteena tawjiihino oo aynu dhisno. ummadaha kale oo horumaray waxay ku horumareen, waxay ka shaqeeyeen oy dhaqaajiyeen dhalinyartoodii, kadibna waxay sidaa ku noqdeen wadamo horumaray. mushkiladaha shabaabka waqtigan aan joogno soo wajahayay aad bay u fara badan yihiin. waynu soo koobaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. qodobka koowaad waxa weeye mujtamaca ummadda Soomaaliyeed ama ummadda muslimiinta si guud ahaan idhaahdee waxay ka maqan wacyigii islaamka ayaa dhalinyarta ka maqan. qodobkaasina waxa weeye waa qodob aad u muhiim ah. haddii ummadda muslimiinta wacyigoodu ka maqan yahay, waxba ma qabsan karaan, meel uma dhaqaaqi karaan. sidaa daraaddeed waxay noqotay in shabaabkeennu ay waxyaalaha hoose ee liita ay ku mashquulaan, waana ta keentay in maanta ummadda islaamka iyaga oo ah ummaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diintooda u dhammaystiray, haddana ay dadka ka liitaan. waa qodobka ugu weyn ee keenay in dib u dhac ku yimaado ummadda muslimka iyo dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed. qodobka labaad wuxuu noqonayaa waxa ka maqan meesha ciddii saxda ahayd ee lagu dayanayay. qudwa saalixa baa maqan, iyaynu ku dayanaynaa. sidaynu wada ogsoonnahay, dhalinyarteennu waxay ku daydaan dad aan ehel u ahayn diinta islaamka. haan idhaahdo dadka qaarkood ama dhalinyarta qaarkood waxay ku daydaan fanaaniin aan wax macnaa adduunka ku soo kordhinaynin. dhalinyarta qaarkood waxay ku daydaan ciyaartooy aan muslimiin ahayn oo diin aan lagaga dayanayn, laakiin hoos u ridaya fikirkoogii ayay ku daydaan. dhalinyarta qaarkood waxay ku daydaan niman lacagley ah oo tuug ah oo xaqii ummadda dhacay ayay ku dhaqmaan. taasayna doonaan inay martabadooda iyo meeshay taagan yihiin ay gaadhaan. haddaba su-aashu waxa weeye, iyaynu ku dayanaynaa? waxaynu ku dayanaynaa nebigeena suuban sala allahu calayhi wasalam. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana. rasuulka ilaahay waxaa idinka sugnaatay kudayasho wanaagsan baa idinka sugnaatay. haddii kudayashadaa wanaagsan ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam lagu dayanayo la waayo, iyo saxaabadii wanaagsanayd iyo dadkii wanaagsanaaye horumaray, haddii la waayo kudayashadooda, waxaa imanaysa in lagu daydo dad aan wanaagsanayn oo liita, kadibna sidaa takhallufu yimaado. qodobka saddexaad waxa weeye ee dhalinyarta soo wajaha waa ixbaad ama waa quus. way quustaan dhalinyartu mar haddii ay wax qaban kari waayaan ama ay carqaladi ka hor timaado, way quusanayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala qowmkan aynu ku noolnahay wuxuu dhigay sunno rabbaaniya. haddii maanta ummadda muslimku ay liidato
ama dhalinyarteedii ama ummadda muslimiinta guud ahaan ay liitaan, dadka gaalada ah ama ummadaha horumaray marbay iyagna sideennoo kale u liiteen oo sideennoo kale u burbursanaayeen. qodobka afraad waxa weeyaan waa waxa loo yaqaano iclaam ama social media oo dhibaato weyn ku haya dhalinyarteenna, si gaar ahaaneedna dhalinyarta Soomaaliyeed. waxaa jira dad social mediaha u isticmaala in dhalinyarta lagu baabi'iyo, in dhalinyarta hamigooga hoos loogu dhigo, in dhalinyarta masiirkoogii saxdii looga leexiyo. waxaana ka mid a dadkaas ummadaha diinta islaamka didka ku ah ama ka soo horjeeda. dadkaasi waxay sameeyaan dad kala duwan ama kooxo kala duwan si masiirka ummadda muslimiinta loo weydaariyo. dadka qaarkood waxaa loo sameeyey in ay ummadda muslimiinta aflaam iyo waxyaalo xun ay u soo gudbiyaan. dadka qaarkood ayaa waxaa loo sameeyey in dhalinyarta Soomaaliyeed la jeediyo oo mustaqbalkoodii iyo diintoodii iyo ummaddoodii siday u anfici lahaayeen laga jeediyey. qodobkaasina waa qodob aad dhibaatadiisa wata. haddii haddaba dhalinyarteennii ay waxaasoo dhibaato ii soo wajahayaan, maxaynu talooyin siinaa ama maxaynu xal uga dhignaa? qodobka koowaad waxaynu leenahay dhalinyaroy, haddii dembi aad ku jirtaan waa inaad hadda sida ugu dhaqsiyaha badan aad uga baxdaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qafuuru raxiim, wuu ku dhaafayaa wixii aad horu marsatay. qodobka labaad waxa weeye waa in aan diinteenna baranno. nebigeena sal allahu alay wasalam saxaabadii markii uu la noolaa diinta waa baray, si fiicanna waa u fahmeen. kadib iyagii baa qaaday iyaga oo dhalinyara daafaha adduunkiina gaarsiiya, si aynu uga badbaadno waxyaalaha hadda adduunka ka dhacaya iyo mushkilaadka dadka muslimka didka ku ay nagu hayaan. si aynu uga badbaadno waa inaynu diinteenna suuban, waa inaynu barannaa. qodobka saddexaad waxa weeye waa inaad noqotaa mid horay u soconaya oo dadaalaya oo waqtigiisa u fara badan gelinaya wax anfacaya, wax naftiisa anfacaya, wax dalkiisa anfacaya, wax dadkiisa anfacaya. markaan sidaa ku leeyahay uma jeedo inaad noqoto mid masaajid un fadhiya, dikriga haya, aan ka soo bixin masaajid, bal waxaan u jeedaa in aad noqoto mid diintiisa ku adag, adduunyadiisana gacanta bidix ku haysta, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudaya, dhinacna maadigii ka baranaya. xaq ma aha ama cadaalad ma aha in ummad dastuurkeegu ku bilaabmay iqra ay noqoto ummadda adduunka ugu dambaysa. xaq ma aha, laakiin waxaa xaqa inay noqoto ummadda ugu horeysa. qodobka afraad waxa weeye waa in asxaabta xunxun aad iska ilaaliso. haddii hadda aad la socoto asxaab xunxun oo mustaqbalkaagii dib u dhigay, fikirkaagii hoos u dhigay, waa inaad hadda joojiso. waa inaad samaysato asxaab wanaagsan oo hab fikir fiican leh, mustaqbalkoogu cad yahay, wixii wanaagsan kuu sheegaya, wixii xunna kaa qabanaya. sidaynuna ogsoonnahay asxaabtu wayse saameeyaan. nebigeenna sal allahu alay wasalam waa inagu booriyey inaynu dadka wanaagsan raacno. asxaabta wanaagsanina waa lagama maarmaan. qodobka shanaad waxa weeye waa inaad waqtigaaga nidaamiso. waqtigu sidaynu wada ogsoonnahay waa raasamaalka qofka bani aadamkahay uu haysto. haddii waqti ka mida waqtiyadaada uu tago, badh ka mida ayaa tegay, badh adiga kaa mida ayaa tegay. sidaa daraaddeed waqtigaaga waa inaad geliso wax ku anfacaya, anfacaya waddankaaga, anfacaya diintaada, anfacaya naftaada. haddaba dhalinyaroy, waqtigu waa socdaa, zamankuna waa ordaya. sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa inaynu ka faa'iidaysanno. gabayaa carbeed oo la odhanayay Isxaaq al-Biiri ayaa isagoo inankiisa la dardaarmaya wuxuu ku dhahay: tafutu fu'aadaka al-ayyaamu fatan watanxitu jismaka as-saacaatu mahdan.
jirkaaga ama fu'aadkaaga qalbigaaga waxa jarjaraya maalmaha ayaa jarjaraya, jirkaagana waxa qoraya saacadaha ayaa qoraya. sidaa daraaddeed waa inaynu ka faa'iidaysanno. sidoo kale haddii aad doonayso inaad nolosha horumar ka gaadhana waa inaad dad khibrad nolosha u leh oo xag aqoon ahaaneed, xag fikir ahaaneed, xag diin ahaaneed kaaga horeeya waa inaad la tashato. wastacin billaahi walaa tacjaz. wassalaamu calaykum